mujaahidiinta jimciyada Soomaaliya ee magaalada Berbera ayaa saakaysu soo bax balaaran oo ay ka sameeyeen xaruntooda magaalada Berbera kaga hadlay arrin ay aad uga soo horjeedaan oo ay ku eedeeyeen barsaabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Hayste Ramax iyo ganacsadaha Daabshiil oo ay sheegeen inuu iibkiisa doonayay baryahanba in magaalada Berbera waxaana saaka mujaahidiintu xaruntaasi isugu soo baxay ay si cad uga soo horjeesteen iibka la doonayo in aqalkoodaasi laga iibiyo ganacsadaha Daabshiil waxaana ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland mujaahidiinta Soomaaliya oo u badan qaar naafa iyo qaar dhaawacyo kala duwan ka soo gaadeen dagaaladii ay kula jireen taliskii kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre inay xukuumaddu faraha kala baxdo aqalkaasi oo ay sheegeen inay waxantiyaba dalka ka hayaan mujaahidiintu aqalkaasi iyagoo intaasi ku daray inay aqalkan eeganayaan caruurta mujaahidiintii ku shahiiday kuna nafwaayay dagaalkii dalka lagaga saarayay ciidamadii kaligii taliyihii Maxamed Siyaad Barre waana kuwan mujaahidiinta oo ka hadlaya aqalkoodan la iibiyay iyo sida ay uga xun yihiin iyo waliba sida ay uga soo horjeedaan wixii ay cambaareysay shalayto iyo wixii ay ka hadlaysay bay maanta xalaalaysay waxaana na dilay xaqajis guriga Soomaaliya ah oo maalin walba la leeyahay ka soo dareera nin baa laga iibiyay taasoo ay wado maamulka magaalada ka jira waxaana laga iibiyay ninka Dahabshiil laga haddaba waxaan leenahay fariinta dirayna waxa weeye adiga ma ku digayna ee halka fadhiya naafada iyo waxa iska gandooda maanta Ilaahay ku ladnaysiyo nabcaad haysataay in adeer nabcadaada ku xamdi noqoyaan laga raacine oo aanay taas ka qabanine nabcadaada ku waxa ku tumanin dadka jilicsan dhulkuna waa badan yahay meel kale uga baydh baan ku leenahay assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxa isku yimi mujaahidiintii iyo dadkii ay dhaleen oo imika dhowr iyo 20 jir mid oo marayo waxa isku kaaya keenay dareenkay kiciyay oo runtii gurigana imika ayna arrinka ka iibiyay Dahabshiil marka waxaan moodaynaa horta daynu naga haray oo Dahabshiil haray laakiin dawli waa ka soo socda waxaan leenahay ninka odayga horta wajigiisa isma naqaano laakiin waa nibcaad haysataa wad wanaagsan tahay wadanka waa dhisatay dadkan waa wada curyaamiin waxba ma hayaan alxamdulillah rabbil caalamiin baadina ku jiraan aqalkana adduun bahayaan waxaan u sheegaynaa oo mar labaad leenahay annagoo moodana harayna naarta u dhameynay hantidaada ha iska gelin meelaan ku suurtagelin mujaahidiinta Soomaaliya waxaan halkan isugu nimi dareena oo soo gaaray in lagu dulubiyay gurigii hanti baanu haynay xukuumadda Soomaaliya waxaan moodeynay mid soo nooleynaysa jimciyadii Soomaaliya oo agoomi soo kicinaysa laakiin waxay noqotay mid ka xuntii hore Ramaxna waxaanu leenahay ma cuntamayo kani wax kale baarbaaro u leenahay Ramax wax kale baarbaaro Daabshiilna waxaanu leenahay Daabshiilow hantidii ummadda oo dhan baad hoysatay oo aad shubatay oo lookalkii adduunka oo dhan baan ku shubnay inaad maanta ku soo noqoto Soomaaliya jeebka iyaga iyo agoomiya naafida ku soo noqoto waa nasiib daro waxa burburi doona guryahaaga cadcad iyo baanankaaga lacag taala burburi doona anaga waxba naga daadan maayaan taasaan u leeyahay Daabshiilna sidaasaan jimciyada mujaahidiinta Soomaaliya haddaan taariikh ahaan idinka sheekeeyo xaruntan jimciyada mujaahidiinta Soomaaliya waxa weeyaan xarun aan dawlad iyo cid kale toona aan wax taageero ka helin contribution aan iska ururinay ayaa waxaan ku sameynay 22 meheeradood oo ku hareeraysan jimciyada mujaahidiinta dabadeed si inkamka waashmaanka iyo biyaha iyo leerka jimciyada looga bixiyo iyo afarta shaqaalaha waxa dhacday in iminka soo gaarayo waa la iyo Daabshiil baa laga iibiyay Daabshiil ayaa laga iibiyay waxaasna arrinteed laga badan maskaxdayda geli waayay ayuu arrinkaasi noqday sida awoodeed waxa halkan iminka isugu yimi agoomihii iyo naafadii iyo mujaahidiintii ku abtirsanaysa jimciyada mujaahidiinta Soomaaliya dabadeed iyo ganacsatada yaryareed loo sameeyay maxay ahaayeen meelaha ay lagu sameeyay sida awoodeed waxaan u sheegaynaa xukuumadda oo aanu fariinta u dirayay Daabshiil in ay arrinka dib uga noqdaan oo arrin aan la yeeli karin haddii taa lagu kaco oo la xoog lagu noqoniyana waxa iman doonta cawaaqib xumo maanta jooga ka xun waxaan anigu leeyahay ninka Soomaaliya iibiyay waa in xaramka iibiyay xasan nin iibiyay maxamed uu ka daran yahay
midna waxaa leeyahay madaxda berbera had iyo jeer loo soo diraa berberuu say culyaaminadeeda inbay ka shaqaysaa ee wax kale kama shaqayso iyadaa baayacda oo iibinaysa mid hore iyo mid dambeba waa ismadhaanta weeye waa siidoo kulliyana mid baan runaya shalay waxaad lahayd hantidii ummaddaa la cunaya waxaanaa la cunay haamil baa la iibiyey waxaa la iibiyey hindiya laykii o dhan baa ayaad shalay lahay maantana adigii ayaa iibinaya oo khalyaan lagaa joogaa waxaan leeyahay saddexda maalnaawi ayuu ninku maamahay gabadh baa tii saddexda maalnaawi miyaa taqaani waddankan wax waddanii maba joogaan waa saddexda maalnaawo haddii arrimahaa dib looga noqon waayana wax aan la filayn ayaa iman doona waxa aanu lahayn waa xusbiga sanamta waa kulmiye waa caynkanba ayay dadku lahaayeen isbeddel baa la doonaya iyo waxaana la doonayaa baa la dhahaa maanta dhan walba waraabaa ka soo baxay dhan walba reerku waa ka dayacay oo meesha degan reerkan reer somalilan ummadda somalilan la yidhaa dhan walba way ka dayacanto dhan walba waraaba ugu soo baxay kuwa xukuumadda haya ayaana waxaa wada odayaafka mujaahidiinta gobolka saaxil waxaan leeyahay ninka layaa daabshiil xukuumaddu aana soo kala gaadho in badan baanu marka dhow iyo 10 sannadood ayaanu saysanay waxaan leeyahay ana soo kala gaadho daabshiil waxaan leeyahay ilaahay ka baqa daabshiilo maanta waad wanaagsantahay nimcaad ku jirtaa ninka ugu lacagta badan baa tay maanta somalilan wargidaarada sooyaal iyo naafadan meelaha jiifa ha isku kicinin halkaad wax ka tari lahayd ee adigu aad soo dhaweyn lahayd ee meesheeda u dhisi lahayd ayaad adig leedahay waan ibsaday war ilaahay ka baqa iibka laga hadlayo iibkan baryaha waa maqlay waxaan moodayay waxaan jirin oo qof baa kulli iman iyo soo yaraana baayo danigu maskaxda kuma hayn inay dhex karto iman moodi haddii anigu magaca mujaahidiinta ka midoo ku hadlaya anigu waxaan taagan cidna anigana taagan hebel iyo cidna odhan cidna yaan la baayicin dadkan wuxuu baahan wax waxtara wax waxyeelo ma baahna naafadan iyo aqoontanna kuwii ka dhintay xafiiskooda adeegyo u baahan yihiin wax guurka ku jiraan ka iibiya uma baahna wasalaamu calaykum dadka halkan sooyaal hortooda ku ganacsada oo ah 220 guri anagoo ah oo lacagteedii gelinoo ka dhisan maanta in la yiraahdo walaal anagoo hantideedu ku jirto ma ogol waxaan u sheegaynaa dahabshiin inaanu hantida meesha ku jirtay waa 220 guri oo dadka ku ganacsada hal shakhsi iyo 220 meeradood oo ku shaqaysta meesha inaanu lacagtiisa ula badhiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saxarbar warayska ka ciyaara shirkadka watarkaana madaxda uu jecel bandooda bulshada inuu baro boqol lagu baandayn dhagax buuran oo meel dhagax hadala beenbeena bulshada baan iyo barnaamijka macaaliinta birta dhagaxa baalkii ariga baabkii haama beesada kolkay siisatay buus loola waayay sooyaalnay baaxo banaanta alla baabiin dhanka bariga beeraha bixiyo gobolada buubay dib ka barbara haystee beeri reebayn breeg ma aha wara saabka iyagu meel kama baydo sooyaalna baaxo banaanta ganacsiga daabshiil ayaa ilaa iyo xukuumadii hore waxa uu si weyn ugu warwareegayay iibka gurigan jimciyada sooyaal ee magaalada berbera iyadoo waqtiyadaasi oo dhanna ay si aad uga soo horjeedeen maxamed cabdilaahi soo fadhiiste oo dadweyne mayuus magaalada berbera.